maanta xujaydii dadka Soomaaliyeed ee waayeel iyo saqiir balahay oo hooyo iyo aabba lahay oo ma aragtay soo xujaynaa oo waxaad aragtay xal aan aragno calool xumaa waa bililaqo xujaydii xitaa waa la bilaqaysanoo haya dadka Yurub iyo Ameerika iyo dibadaha ka yimaadaan dhibaatadaas ma qabaan meel fiican la dijiyaa xaramka meel daris la dijiyaa laakiin dadka Soomaaliya ka baxo oo wasiirka oo mas'uulka ka yahay ay dhibaatadaas haysataa dad oo ilaahay dartiis u baxay oo xaj ninka liyaado inay soo xajiyaan u baxay oo ilaahay kuma darnaaday xajka aad horta in la maasuqo waa aabaniyo qalad qofkii ninka liyaado xajka uu aadayo xajka lagu maasuqay oo wixii cuntadii iyo wixii laga goostay liyaado waa arrin ninka liyaado aad u xun maalmihii ugu dambeeyay waxa soo baxaya cabashooyin ay dhigayeen xujayda Soomaaliyeed ee ku sugan dhulka barakeysan ee Makka iyo Madiina xujaydan ayaa ka cabanayay in aysan helin adeegyada la xiriira cuntada iyo gaadiidka xujaydan oo hore u bixiyay ama hore u shabay lacagii cunooyinka iyo waliba gaadiidka ayaa hadda ka cabanaya in aysan helin adeegyadii u qalmay cabashada xujayda ayaa ku soo aadaysa xilli halkaasi uu ku sugan yahay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta xukuumadda halgaarsiinta ee Soomaaliya Mukhtaar Rowo Cali Abu Mansuur ilaa ay hadda wasaaradda diinta iyo waqaafta si rasmi ah kaga mahadin cabashada ay soo bandhigeen xujayda Soomaaliyeed ee ku sugan dhulka barakeysan qaar ka mid ah shacabka caasimadda ayaan wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan dhibaatooyinka ay la kulmayaan xujayda Soomaaliyeed ee ku sugan dhulka barakeysan waxayna hadalkooda u dhigan sidan bismillaahir rahmaanir rahiim aad u maasantiin waxa la yiri aan horteed calowta uu gadaasheed xad u maleynay dawladdaanu madaxa ugu sareeyay dadkii barakicina oo dadkii masaakiinta ahaa oo deganaay oo dalkan dawladdii siyaad barre ma aragtay gumeystii iska raacday ayaa maanta waxa lagu tilmaamayaa anaga UAC aan bacaan raacdeynayna UAC dadkii guriga degay waa nasiib daran leenahay in jaran laga dhigto sababtoo ah waxa waaye dadkaanu maandheedu lahay dawladdaanu wasiirka diinta cuqaabta hadda ma aragtay laga cabanaa waa filaynay dawladdu ayadaa u bilowday waxa la yiri ratiga yaraa la yiri ratiga weyn saan qaadkiisa u leeyahay madaxweynihii jamhuuriyadda wax dhaco haayabo oo dadkii barakicina wasiiradii marka xad ka malaynay marka hadii la isku soo galay awal guryaha iyo xaafadaha iyo shaqooyinka la isku heebsoocay ay ahaydba oo dadka la barakicinaya maanta xujaydii dadka Soomaaliyeed ee waayeel iyo saqiir balahay oo hooyo iyo aabba lahay oo ma aragtay soo xujaynaa oo waxaad aragtay xal aan aragno calool xumaa waa bililaqo xujaydii xitaa waa la bilaqaysanoo haya waa la bilaqaysanoo haya meelihii xarabka lagu soo xaji jiray waa la bilaqaysanoo haya aniga hore aan kugu sheegay ratiga yaraa liga ratiga weyn saan qaadkiisa u leeyahay sababtoo meesha aan kaala hadlaa dhegayso waa ninka hadduu madaxa ugu sarreeyo oo wax hallayna ka yarna had u malaynay marka maanta waxay isugu timid xujaydii isugu timid oo waa yeeladii laamiga inta gacmaha la qabto la gudbisiinaa meel aan dal aynaan aqoonin anaana wadaa urood hotel dejina oo bas saara sacuudiga ku deeyey kama xumo dadkii 500 oo ruux oo haween oo gabdhaha oo carabta laga gatay oo liira shaqaalay noo noqonayaan oo qaar ayagoo waalan la soo tarxiilo ee darooga si ugu wadeen carabtii gabdhayna Soomaaliyeed ayagoo dhaga beelsan yimideen waa kuwa guriyada ugu xirayeen waxaasna waxa keenay madaxweynaha hadda jooga waa teerabkiisa koowaad oo ah teerabkiisa labaadna dad uu barakacay marka wasiiradiisana maxaad ka filanay marka wuxuu asiga hambana waa in ayagana hambadaan midda labaad haddii aan ka hadlo mawduucan waa aragnay xujayda Soomaaliyeed ayagoo ku dhibaataysan magaalada barakeysan ee Makka al-Mukarrama ayagoo ka cabanayo xagga cunada ayagoo ka cabanayo xagga basaska dhibaatooyin badan arrintaasna waa arrin soo laalaabatay arrin sanadka kaliya ku kooban maaha waa arrin dhacdo inta badan laakiin waan la baahi jirin mooyaan arrin soo laalaabato waaye waan arrin taagan wasiirka diinta ee waqaafta Mukhtaar Rowo Abu Mansuur waxaan leeyahay arrintaas yaan lagu fiirsan xagga ka sarreeyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxda ka sarreyso waxaan leeyahay wasiirka arrintaas yaan lagu fiirsanin arrintaas waa arrin dhibaato taagan oo xujayda Soomaaliyeed haysato oo dhibaato ah waliba waxa badan intaan hadlin afarta yar oo la soo bandhigay waxa ka badan kumanaanka iyo boqolaalka dhibaatada ay haysato aan hadlayna la aamusan marka arrin taagan waaye waa arrin muuqato dhibaatadaasna waxay haysataa dadka Soomaaliya ka baxa dadka Yurub iyo Ameerika iyo dibadaha ka yimaadaan dhibaatadaas ma qabaan meel fiican la dijiyaa xaramka meel daris la dijiyaa laakiin dadka Soomaaliya ka baxa oo wasiirka oo mas'uulka ka yahay ay dhibaatadaas haysataa Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu qaalisan marka xad kale aad haddana dadka Soomaaliyeed waxay ka sii cabanayaan lacagii badan ay bixiyeen inaan adeeg aysan helin
waa sax arrintaas waa sax waa jirtaa arrintaas waxaana u sabab ah maamul xumo maxay hayto dawladda oo mar waliba aan xil iska saaraynin lagu fiirsanayo shacabkii iyadoo wasiirkii magaalada uu ku sugan yahay magaalada Makal Mukarrama uu ku sugan yahay in dhibaatadaas ay socoto oo dadkii xujayda ahay u tagay inay cibaadaystaan la dhibaataynayo arrintaas marka waxa waa isla xisaabtan la'aan anigu sababay lahay niyahow ninkii yahdo waa baraab bulshada waa ku arka arrintaas waa daawaday horta dad oo ilaahay dartiis u baxay oo xaj ninkii yahdo inay soo xajiyaan u baxay oo ilaahay kuma darnaaday xajka aad horta in la maasuqo waa aabaniyo qalad qofkii ninkii yahdo xajka uu aadayo xajka lagu maasuqay oo wixii cuntadii iyo wixii laga goostay leeyahay waa arrin ninkii yahdo aad u xun marka ninkii yahdo taasu aad aan ugu xunaa waliba boqolkiiba boqol qofka waxa la rabaa ilaahay dartiis isu dhiibay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala xajka ku aad ilaahay siiyay oo xajka aaday inuu si nabad uu ninkii ku soo gudo si farxsan ku soo gutoon ilaahay kuma darnaa si adeegyadiisa loogu talagalay loogu fuliyo hadda niyo maxaa aniga waxaan aaminsanahay Soomaalida maxaa waxa la hadii xajka xitaa ninkii yahdo wax laga dayaa musuqmaasuq iyo laab iyo wax cunato laga raadiyaa hadda taana ilaahay kuma darnaa waxa ninkii yahdo qalaqalaagi hadda lala wareegay ayagana waa wixii dhamaaba waa wareegeen marka waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado ninkii yahdo xujjeedu waa meesha qofka wax sahlan ma waa tiirka ninkii yahdo shanaad islaamka marka ilaahay kuma darnaa wax la kaftama wax la musuqmaasuq maaha irsaaqada ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan leeyahay dadka musuqmaasuqay irsaaqada meel kale ilaahay ha ka siiyo dadka xajka ninkii yahdo maritaankiisa shaqadiisa ha u toosiyaan ilaahayna uga cabsadaan horta maxaa kala socdaa arrintaas horta waa ku dhawaay himilo anuu magaciisa ku bilaabay maskar gamadege maskar roogo Allah ninkaas waa ogaay maskar roogo ma Allah masiirka qaabka amriya diinta maskar roogo ma fahanteen horta noo ummadaas say wax ku keenay oo ilaahay og kistoorna ma xirabeen inay ku soo xajiyaan adii xajkii dadka inay aadaan oo rabeen oo inay ku soo xajiyaan u baahnaayeen kistoob oo waxa hunguri macal meesha seexan lahayn wixii dhamaan hal mar isku aruursatay yaa wixii dhamaanay wixii dhanba hal mar isku aruursatay yaa dadka banaanay fadhiyaan ma xajka dushaad ma geen rabta ilaahay baar waay dushan ma geenaysid waa arkoona dadka waa dhameysatay waxoodna waa dhameystay hore dhiigga Soomaali loo baneystay ma fahanteen hore soo dhiigga Soomaali loo baneystay baneysaan waa la isku yaqaanaa dadkii oola barakicin iyo balaay ka cawaadayeenba marka warkan aabadiin warkiina waa la fahmay hadda dadkii xajka aadayn soo xijin lahaayeenba oo ilaahay kasta u dhiibay hadiiba macal trisboorkii macal hunguri macal meeshii seexan lahaayeen kulliyoodba maskar roogow hadiiba jaabka ku aruursatay noo ilaahay ma ka cabsanaysa ilaahay ka cabso kasta islaameed hadii macnaha dadkaas oo macnaha trisboorkooda iyo macal jaabkishadooda macal meeshii seexan lahaayeen ka qaadatay ama kistooda u celi ama meeshay rabaan aadaane diro fasax xajooda iska aadaana iska soo xajiyaan ma faande anagana ilaaha noo saaray horta xajka nin qeyreysan oo duceysana aadanay waa duceysanaana wax ku aadna walaana magaalada xamar shiid waaybo ma faamino inaan lug ku aadna wax yaraan oo dhimanay ma faande marka maxaa dhiileen dadkan kuleel waay oo ka kuleelsan baraka xoog badanaa galeen meelihii ku hooyan lahaayeen iyo meelihii ku jireen dhanaan nafta laga qaaday